قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، sidii wiigii hore aan kugu sheegnay culamo marti inoo ah oo uu ka mid yahay sheikhuna alfaadil sheekh bashiir yuusuf shiil. in sha allahu tacaala wuxuu inoo geli doonaa muxaadaro caam ah. falyatafadal sheikhuna alfaadil mashkuuran majuuran in sha allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى أيام هذه إسكاله. ثم waxaan jeclaystay bal inaynu ka wada hadalno shay kooban kuna saabsan ilaahay subxaanahu wa tacaala abuurkayna abuuray iyo ahmiyadda laynoo abuuray iyo daldaloolada inaan soo gala meeshay naga soo galaan. gudoodka aynu in badan ku khatalnay ama aan ku khatalna yani si fiican aanu u galnay gudaheeda waxaa ka mid ah qofka bini aadanka wuxuu cunayo. arrinta iyada ahna ma aha arrin hadda bilaabatay, waa arrin ibliis uu waa hore soo bilaabay. xadiid waxaa jiray fi musnad abu daawuudin الطayaalisi wa musnad الإimaam أحmed wa صaxiixi muslim wa mustadrak xaakim wa abu الsheykh fi kitaab الcظمة wagayri dalik ay warinayaan. wuxuu ku imaanaya min طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. isagoo oranaya waxaan maqlay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh oranaya: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يترك، فجعل إبليس يطيف به وينظر ما خلق الله عز وجل، ينظر به ما هو فيما، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. وحلي رسولك عليه الصلاة والسلام مركو إلهي أبو ري أبهن آدمها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أي إلهي سبحانه وتعالى سيد القرآن كما إنه أبو الشيء wuxuu alle inoo tilmaamay in uu ka dhigay ka abuuray cara. yaa ayuha الnaasu in kuntum fii raybi min albacdi faina khalaqnaakum min turaab. carada iyada ah oo ahayd mid jilicsan. uma alle wuxuu inoo sheegay subxaanaه wa tacaala min salsaalin inay ahayd dhoobo adag oo adkaatay, meel baa la dhigay. xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa lamaa sawara allahu aadam tarakahu fi ljanna maa shaa allahu an yatruk. ilaahay subxaana wa tacaala markuu abuuray aabaheni aadam ahaa, ilaahay jannaduu dhigay subxaana wa tacaala in allaali intuu ilaahay doono subxaana wa tacala. halkaasaa looga tegay. aayaddii qur-aanka ahayd ama labadii aayadoodii qur-aanka ahayd, xadiidkana marka wuxuu si fiican usii cadaynayaa marka hore inay caradu ahayd caro jilicsan, uma dabadeedna ay adkaatay marka dambe, ilaa ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisii uu ku tilmaamay min salsaalin min xama-in masnuun.
ay adkaatay dhoobo adag hadday noqotay ilaahay subxaana wa tacaala naf buu ku afuufi doonaa laakiin maxalu shaahidka waa kan nabiga calayhi salaatu wasalaam oga dan leeyahay fajacala ibliisu yatiif nabigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ibliis wuxuu gudagalay inuu dul wareegayo ku dul wareegayo aadam isagoo suurad oo meesha yaala intaanu naftaba lagu afuufinba ibliis wuxuu gudagalay buu yihi nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh yatiifu bihi yandur inuu dul wareegayo oo eegayo oo fiirfiirinayo bal waxaan la abuuray indhuu leeyahay san buu leeyahay af buu leeyahay gacmuu leeyahay luguu leeyahay calool buu leeyahay calooshan afkay wax ka gelayaan wixii oo dhan buu eegay wuu ogaaday nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam falamaa ra'aahu ajwaf markuu ogaaday inuu calool leeyahay uur hoose ay wax galaan carafa annahu khuliqa khalqan laa yatamaalak wuxuu ogaaday ibliis in ilaahay abuuray abuur nooc cusub weeyaan abuur cusub weeyaan ilaahay abuuray subxaana wa tacaala lagu soo kordhiyey makhluuqaadkii markaa jiray jin iyo insi baa jiray jin iyo malaa'ig baa jiray allahna wuxuu inoo sheegay subxaana wa tacaala malaa'igta inuu dhex socon jiray shayaadiintu ibliis inuu halkaa dhex joogi jiray oo malaa'igta ku dhex jiri jiray laakiin maalintii ilaahay abuuray aadam malaa'igii shaqo kumaynan lahayn hawshii ilaahay u diray bay qabsanayeen waa wax imtixaan min allahi jala wacala ibliis wuxuu gudagalay inuu dul wareego aadam oo uu dhowro marba dhan ka maro marba si u fiiriyo si uu u ogaado waxaan ilaahay abuuray subxaana wa tacaala ay soo kordhiyey maxay yihiin xaaladiisa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam falamaa ra'aahu ajwaf markuu ogaaday inuu waxani uur leeyahay iyo calool hoosey waxgalaan jawf waxaa la yihahdaa meeshay waxgalaan ayuu wuxuu yihi nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh carafa annahu khuliqa khalqan laa yatamaalak wuxuu ogaaday in ilaahay abuuray abuur cusub kaasoo aanan waxba awooda lahayn laa yatamaalak bimacnaa lafdi kale oo fii mustadrak xaakim wuxuu oranayay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dafira bihi khuliqa khalqan laa yatamaalak dafriga waxaa la yiraahdaa qofkan in hoos ahaan loo sii ogaado bimacnaa ibliis wuxuu ogaaday in uu leeyahay calooshaasna ay u baahan tahay in wax la geliyo waxaa la gelinayana in qofka uusan u baahan yahay meel uu ka keeno sidaa darteeda haddaba in lagu xambaari karayo waxaan ilaahay raalli kahayn inuu meeshaa geliyo hadduu meeshaa geliyana ay u dhammaanaysa ayr walidalika nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid miqdaad bni macdi karab radia allahu tacaala canhu waardaa في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن وحورنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه ما ملأ آدمي قفك آدمك أهمبوحي وعاء ويل شر من بطنه حديث كان qaybtiisa kale waynu u tegi doonaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maa malaa aadamiyun qofka bini aadanka ama buuxiyo wicaan weel shara min batni calooshiisa ka shar badan culimadu waxay yiraahdaan meesha waxaa laga qaadanayaa calooshu inay tahay weel wax lagu gurayo weelkan raashinka ku jira aad kasoo guraysaa calooshaadaad ku guraysaa maa malaa aadamiyun marka qofka bini aadanka weel kuma dhuro raashin wicaa calooshu waa weel weeyaan shara min batni calooshiisa ka shar badan buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam calooshiisa meel ka shar badan raashin kuma dhuro bixasbi mri'in nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadanka waxaa kaga filan akalaatin yuqimna sulba dhowr cantuugo oo dhabarkiisa uu ku toosiyo calooshiisii iyo dhabarkiisii ugu hagaago awoodiisii uu ku heli karayo fain kaana laa maxaal hadduusan yeelaynin ilaa inuu calooshiisa waxgeliyo mooyaane nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu salaam ha qaybiyo fathuluthun liطacaamihi wathuluthun lisharaabihi wathuluthun linafasihi saddex baa loo qaybinayaa qayb raashinkii ku rid qayb caanihii cabitaankii ku rid qaybna waxaad ku rid u daysaa hawadii
نفسك قدام. حديث المركب وحو عدي النبي صلى الله وسلم عليه ولا بوحيا إني علوش أشر بدنته. إبليس نوحو أقاذي هوري وأقاذي قفك بني آدم كأه إنت أولي هاي يماشي كليه وكم ماغي كرا يهدو إني تهي علوشة. قفك بني آدم كعلوش يسهدو كل دوحان إلهي رالك سبحانه وتعالى حرير كيساقي إلهي ولحيبا قوائي جل وعلا إلا وقارين يساقي إلهي سبحانه وتعالى حرير كودي وقواه. وحن نقول دليل حديث كلا في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أرني إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال له وقال طيبة وحن طيبة هنا ما أقبله. الله سبحانه وتعالى طيب ويا وحن طيبة هنا ما أقبل إلهي سبحانه وتعالى. ومعنه هو محي حرام ما يركن يقف كسور وريجي إلى حبكي لما جل وعلا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إلهي وحي مؤمنين تفري وحي أنبياء على الله فري يرسش. أذيك يرسش إلهي اسكو شيء بالي فري. هو محي أكل الحلال. حلال شيء لعنه. مركز النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أيضا أخريه في سورة البقرة وفي سورة الأنبياء. لبضوا بأي لحظ ليان أنبياء يرسش إلهي سبحانه وتعالى مثل ولحظ ليه مدنا لقولها الليو ضدكم مؤمنين ته وقالوا ليه سبحانه وتعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من طيبات ما رزقناكم وحول ونكسين إنك أرزقنا عنا وحكم ده الطيبات كأ حلاشة واعملوا صالحا عمل ونكسنا السمية. النبي عليه الصلاة والسلام هدو انت عديي أيوه حقوق قد بيبل إنه عديي مثال كأرنتن يده وماذه إنه الرئيس سيدا حديث كلمة وتلمامي ربني إسرائيل أي النبي عليه الصلاة والسلام إنه تلمامي قصة كدعضي قصة وصي إنك إنا سامينيس تاسو أهقفك أنا حلاش عنين إنه سن علوشي سأنا كل ذي المعاني إنه سن إله أحبك أقبلين إنه سن إله أحبك أقبلين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. النبي عليه الصلاة والسلام إن باجري بني إسرائيل ها سيد حديث كلمة المامية. النبي عليه الصلاة والسلام سفر كيسو راضي أشعث أغبر تنتيسو أي بصاصة هاي جركيسو بور لي هاي علامات كي وحلقوا أقبل جري ويا قفك مسافر كإله سبحانه وتعالى دعادي سواء أقبل يا هدو سفرك سفر حلال يهي إلهي وأقبل يا سبحانه وتعالى ونو سفرك وحين سفر معاصئة إسلامر كان سفرك وحاول دير إن تنتي سينا أي بساس تهجركي سينا بور لي معنو سفرك بعد راضي واتلماوي الواجهر اللي سفر جري قاليت كان سفر جري ويا. النبي عليه الصلاة والسلام قعمه كله تاجنيا قف إلهي كفرية ما وقف إلهي قوسا يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مطعمه حرام وحعنيه وحرامه وملبسه حرام وحريه وحرامه ومشربه حرام عبتان كيس حرامه وغذي بالحرام تأفرادنا وحا لغصو هبي أما وح مركا وصوق وطي تغذيه وكسو قضيه وحرامه فأنا يستجاب له غير النبي عليه الصلاة والسلام. وتعجب وياه سائله وأجيب يا كاسو كله ما بأجيب يا إلهي سبحانه وتعالى. ولذلك مركا وحا مهم أقفك بن آدم كمسلم كأهين ودوره وحن وعنيا عبيه وحن أقاتا وحن أدعوني سيد عبي سيد أماد حيران يسو إلهي بهوري وقدري سبحانه وتعالى لوح المحفوظ كيكو قرينهم أقول لكن وحن لقود دري طريقة أتكو كيني لهيت وحنا مسو كرديسن كريسيد وحنا ناقصين كريميسيد لوح المحفوظ كيكو قدرنتهي وضدي اللي قول رادين لها أذيق الله وحل ساري حديث يسونا صحيحة هذا وحي النبي وكأرني صلوات الله وسلامه عليه إن روح القدس نفث في روعي. روح القدس وجبريل فإيمذ وحي إيشاقي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. نفينا إننا ندمان إلا إكرد ما يستراتو رزقي دي أجشي رزقي أجشي اللبض وإسلا سعدان
سيلا الله تلمامي سبحانه وتعالى ولو كنتم في بروج مشيدة قال عذل أدكيه هداد كجرتان كل كتها جريد وهدين إيمان إساء النبي عليه الصلاة والسلام حديث في المسند وحوارني هدو قفكو حتى مال كاستقارو وقد بقليان رزقي يسي أجشيس هل كان كوبسي ميسو وطن كاغي كوبسي ميسو ملنا كوبسي ميسو جدي يهردو وحي أهاتبا رزقي الله كو سبحانه وتعالى وكو إيمانيا مهما كان أذيقوا أنت هيبة قفك بن آدم كوية هيبة رزقي أجشه أو إيمانيان النبي وحير صلوات الله والسلام عليه فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالمعاصي أجملوا الطلب وناجية وضد أدوح كرة لنسان رزقي أد كرة لنسان وناجية حير إن الحرام كرة ستاه رزقي كو كر دماية إن حلال كرة ستانا كاغا نسقام مايو حير النبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أيوح ورنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد نبي وحكب الله بصلوات الله والسلام عليه تطور كاسمر قوقف كسومره إن المني بوها أفرتن معمود بوهانيا ثم واكقد بيا وحقد بيا عديرو حنجرتي واكقد بيا مدة انت لاق مركوا هذا عديرو هيلب كي سقا هابا مدة إن لاق هانيا ثم وعلى صورة ضينيا حدي نفط لقوا عفوف وبن آدني مخلوق نول بو نقضي رزق بو باهية لوح المحفوظ كوحو البكو قرنايين إلهي أمر بوسينا يا ملائكتي رحمك قابل سنيد ووحو أرنا يا قرى لوح المحفوظ كهلا قصة قرى النبي يقول عليه الصلاة والسلام ويكتب ويؤمر ب4 كلمات أفر شيء وقرأ الله أمره وحكى بدل ما قول كريه وحاوه الروامحي بكتب رزقي مخلوق نول ويانا ساعدها سوء باهية وحو عن الله بالهرترين ظاهر هذه رزقي يصير لقرينا وحول بو رزق عنانا أجل بإليه هنا أجش يسين لو حجي مركا رزقي بقى مركا ما أنت الوحي ينعون إنه مركا هذه الرحمة كويدة كجرتي وحي لقصوا نقلي اللوح المحفوظ كويا مالنتو كل ما ضنا رزقي قاسي وانا ما ذي ويا غير هذه رزقي قاق إني كلا دب دعان صورة قلمة النبي يقول سيدي نوت المامي صلوات الله والسلام عليه والله ما ضوى الله بشيء وضع السعودية أجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالمعاصي طلب كي وضد اللي رادين أيو هجاجين إلهي سبحانه وتعالى وده حق وهو حلاله وقول رادي رزقي هو قري وناق أولي هين لمكه بكري حديث وإن كان في إسناده شيء لكن يرهضان علماء الحديث بمجموع طرقه حسن ويان شيخ ناصر له حسنين أيوه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها اللي سعد بن أبي وقاص أيوه كورنا يي أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة مطعمك هذا واحد عونيسو قوضانيسو هجاجي حلال النغضو هدي أو حلال النغضو تكن مستجاب الدعوة مركب واحد نقول ساقف إله التعالي سنجيب سبحانه وتعالى سعد بن أبي وقاص وين ونقلنا وحوها مستجاب الدعوة قصدي في صحيح البخاري وقصة أرورتي معروف كاهيد بين نوقفلا واقع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيوه أمير أقل لقي كوفة سعد بن أبي وقاص من 10 المبشرين بالجنة وأنك قدم بي جيرده طبعا خوضه سنة كيشان يكونت الهجرين الإسلام كاهيد بود انتباه لها سعد بن أبي وقاص كوفة مركا عراق بالله أقل لقي مدح مركي إسلام كو فرتين واقع عمر بالله فرتين رأي عراقنا وين بدناين سيدي ما تقول لي بدين بيقول قدول لي بدناين ساعدنا وأن قبوا ويانا مسكين aad bay u dhibeen hadhow Umar u yimid waa wareystay bal iyaga warrama ninbu u soo diro yiri bal iyaga soo waran waxa ay ka sheeganayaan dadka ay yiraahdeen ninkan isaga salaada xitaa ma yaqaan soo tukada salaada xitaa ma hagaajinaya yiraahdeen hadaadna weydiisay ninkii sida lahaa jeesay amirka ku jeesay Sa'd ibn Abi Waqqas ilaahi buu bariyay Allahumma atil umrah ilaahu umrigiisa horta bal dheere هذا ديريسنا وأطل فقره فقرنا كل دير إلهي
وعرض له الفتن إله فتننا كرد markaasa waagi dambe da'diisu intay dheeraatay waxa la yiraahdaa indhihii xirbihi waa ku soo dhacay markuu doonayo inuu wax arko inuu kor u qaaday noqon jirtay faqrigii waa meel walba ka soo galay ilaa wuxuu cuno u waayo lafta timirtu arursan jiray dadka ay tuuraan fitna ku dhacday oo da'da isagoo ah buu gabdhaha yar suuqa maray qabsan jiray ilaahay ducadiisii waajibay subxaanahu wa ta'ala wax kalena ma ahayne dardaarankii nabigu qaatay salawaatullahi wasalaamu calayhi ahaa atib matcamak quudkaaga xalaal ka dhig takun mustajaaba dacwa ducadaada waa la ajiibaya in sha allah ibliis wax kale lama wareegaynin dushiisa abuuna aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam wuxuu doonayay baa waxay ahayd in uu helo wado uu bini aadamka ilaahay kaga fogeyn karaya subxaanahu wa tacaala walidaalika aan arkaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu amarka ku siiyey nafta lagu afuufay aabaheeni aadam ahaa saacadii xigtayba waqtigii ka dambeeyeyba allah subxaanahu wa tacaala amar buu siiyey malaa'igtii iyo shayaadiintii meeshaa joogay ibliis amar baa la siiyey oo allah wuxuu ku yiri subxaanahu wa tacaala waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliis abaa wastakbar wa kaana min alkaafiriin allah subxaanahu wa tacaala hadduu amarkiisii diiday jannadii waa laga soo saaray laakiin ballan buu qaaday oo wuxuu oranaya laamla'anna jahannama ilaahayna subxaanahu wa tacaala isaga ballantii horeeya wuxuu yiri rabbiyow aadam iyo caruurtiisa la axtanikanna duriyatahu ilaahow aadam iyo caruurtiisa wax badan oo ka mida inaan kaa kaxaysta ballan weeyaan see ku kaxaysanaya waxa ugu horeeya uu ku kaxaysanaya waxa weeyaan inaan markii hore soo arkay daldaloolada nabiga sidii inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ku dul wareegay wuxuu ogaaday anna lahu jawfan inuu leeyahay calool uur hoose carafa anna lahu jawfan laa yatamaalak awood uunan lahayn calooshaasaa xukunta khalaas weeyaan inuu wax raadsado inuu wax cuno helo uusan dhowrin marka hore waxani ma xalaalba ma xaaraamba inuu urkaa buuxiyo keliya yaqaana waxa ugu horeeya marka ibliis inaga soo galayo iyo dariiqa ugu horeeya inaga soo galayo waxa weeyaan caloosha inuusan qofku dhowrin wuxuu cabayo wuxuu cunayo iyo wuxuu xiranayo laana hadduu qofku marka horeba intaa iska xiro oo xalaal ka dhigo xagee usoo maraa oo kale inan mustajaaba dacwa weeyaan waana qof muslim uga wad waa qof muslim ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran xagee usoo mari karaya maya suurtagal maaha walidaalika ayaa uu raadsaday duruq kale sida ilaahay inoo sheegay subxaanahu wa tacaala allana uu u ballan qaaday isaga iyo inta raacdaba laamla'anna jahannama minka he wa miman tabacaka minhum ajmaciin adig iyo inta ku raacdaba ballan baan ka qaaday inaan jahannamo ku buuxiyo laakiin dariiqa ugu horeeya uu noo soo gelayo ibliis uu noo soo qaadayo waxa weeyaan inuu caloosheenna ku hubsado waxaan ilaahay raalli ka ahayn qofka cuna marka waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala unan xalaal yeelin hilibkiisay gelaysaa jirkiisay gelaysaa iyo wixii la mid ah xaraamna weeyaan xadiidku wain kaana fii isnaadihi shay sacd bn abi waqaas laga warinayay ayaa wuxuu oranayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yiri ayumaa laxmin nabata suxtan fannaaru awlaa bih hilib walba oo naar xaraam ka dhashay xaraam la cunay ka dhashay fannaaru awlaa bih naartaa u mudan buu yiri nabigu salawaatullahi wasalaamu caleyh qofka muslimka inuu hagaajiyo wuxuu cunayo inaad ogaatid waxaad cunaysid haba ku yaraata xalaashaasaa kugu filan maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankan usoo dejiyey inaynu ku intifaacno adduunkeena iyo aakhiradeena ilaahay wuxuu usoo dejiyey subxaanahu wa tacaala inuu inoo noqdo hogaan ilaahay ina gaarsiiya waa xariga ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka qabsadaa ilaahay gaarsiinaya waa bara alamaan sida bacd riwaayaatna ay tilmaamayaan saxaabadan ay oran jireen mucaad bnu jabal cali bn abi aalib wagayru dalik inahu xablu llahi lmatiin ilaahay xarigiisii sugnaa weyaane adkaa qofka qabsadaana waa wuxuu gaarsiinayaa ilaahay jala wacala ilaahay wuxuu qur-aankan isaga inagu farayaa
inaan wax cunno oo wax cabno laakiin aan israaf lala imanin. alla wuxuu leeyahay wakuluu washrabuu walaa tusrifuu, cuna oo caba laakiin israaf aan la imanina. qofku inuu isku wado ilaa iskharibo ma wanaagsana shareecada islaamka. maxaa yeelay dhanka kale waxaynan u wanaagsanayn xataa sixadeen iyo caafimaadkeena u wanaagsanayn. qofka inuu cuno fa thuluthu liطacaamihi wa thuluthu lisharaabihi wa thuluthu linafasihi. haddaadan daynaynin sidaa u qaybi calooshaada. haddaad dayn kartase naxnu qawmun laa na'kul xataa najuuc waidaa akalnaa falaa nashbac buu oranayay calayhi afdal asalaati wassalaam. annagu waxaanu nahay dad aan raashinka cunin ilaa ay gaajoodaan. calooshuba ha dareento. hadday dareento dabadeedna markaasaad waxay u baahan tahay cabid ah ee cunis ah aada siinaysaa xaqeedii. haddaanu cunnana wuxuu oranaya nabigu calayhi salaatu wasalaam dharag waxaan lala dhaqaaqi waayo taa lama nimaano waxa weeyaan qofka inuu cuno luqaymaat yuqimna sulba, akalaatin yuqimna sulba, dhabarkiisa toosiya. dhabar toosintana waxaa loola jeedaa gaajadu qofka dhabarkay godaa, calooshiibaa eber noqonaysa. dhabarkaaga waxaad ku toosisay calooshaada ay awood ku yeelatay, intaasaa lagaa rabaa. soco dabadeedna hadhow markaad gaajootid dabadeed wax cun. naxnu qawmun laa na'kul xataa najuuc waidaa akalnaa falaa nashbac. sidaa darteeda marka waxa muhim ah qofka muslimka wuxuu cunayo inuu iska dhowro inay xalaal yihiin iyo inay xaraam yihiin. hadday xalaal tahayna inaadan badsanin oo aadan aada oga daberin, inaad aayar cuntid. umina caaisha radi allahu tacaala canha ayaa waxay oranaysay xadiidkii saxiixa ahaa inahu kaana yahilu calayna alhilaal uma alhilaal uma alhilaal halaatha ahila fi shahrayn wamaa yuqadu beyta rasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam innaar. bil baa noo dhalanaysay oo tu kalaa dhalanaysay oo tu kalaa dhalanaysay. 3 bilood baa iska garab dhalanaya, waa 2 bilood weeyaane, iyadoo aan guriga nabiga calayhi salaatu salaam wax dab a laga horinaynin. oo muxuu ahaa cunitaankiina markii la yirina qalat alaswadaan almaa altamru walmaa. biyo iyo waxaanu cuni jirnay wuxuu ahaa timir. intaasaa noo ahaa raashin buu oranaysa umina caaisha radiallahu tacaala canha. idan gaajo lalama dhinto, loomana silco, ee ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kuu qoray jala wacalaa inaad dariiq wanaagsan ku raasatid weeyaan. maxaa yeele guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la leeyahay 2 bilood oo xiriir waa 60 habeen weeyaan. bishii horaa dhalatay, tii dhexaa dhalatay, tii saddexaad baa dhalato, bishii saddexaad baa bilaabanaysa. wamaca dalika dabna laga hurin maayo guriga nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayh. quudkiinu muxuu ahaa markii la yiri hishaam bni curwata can abiihi can ummina caaisha, xadiidku saasuu ku yimaadaa. waxay oranaysay waxaanu cunayna wuxuu ahaa altamru walmaa alaswadaan, labadii madmadoobaa ahaa biyihii iyo timirtii. intaasaa raashin noo ahaa. qofka marka inuu hagaajiyo wuxuu cunayo isagay u wanaagsan tahay. aayadaynu soo akrinayna rabbi jala wacalaa amar buu inuu siinaya, uu leeyahay wakuluu washrabuu. amarkaana waa amar ikhtiyaari a maaha amar wujuub ah. inaad wax cunto amar maaha, inaad wax cabtana amar maaha, laakiin waa ikhtiyaari weeyaan. markaad u baahato inaad cunto ood cabtid baa loola jeeda. laakiin rabbi wuxuu raaciyey subxaana watacaala walaa tusrifuu. waa nisfa aaya la yiraahdaa fii sixati linsaan. aayad nuskeed buu ilaahay kusoo koobay caafimaadka bini aadamka oo dhan. oo waa maxay? kuluu washrabuu walaa tusrifuu. aayad kaamila maaha. inan waxbaana ka horeeya waxbaana ka dambeeya aayadda. idan taasi waxay daliil u tahay in aan israaf lala imanin. qeybta hore amarka wuxuu ku tacalluqaa qeybta dambe oo ah walaa tusrifuu. ha xadgudbin, cabitaanna ha ku xadgudbin, cunana ha ku xadgudbin. maxaa yeele labaduba waxay dhibaato u yeelanayaan, madaro ah adiga caafimaadkaagii bay u yeelanayaan. sixadaadii caafimaadkaagii hadday dhibaato u geystaanna ilaahi subxaana watacaala wuxuu kuu abuuray cibaadada ahayd baa meesha ka baxaysa. walidalika imaam ibn lqayim raxmat ullahi tacaala caleyhi keyrkiisa markay ka hadlayaan waxay yidhahdeen qofka bini aadamka hadduu calooshiisa buuxiyo, markuu calooshiisa buuxiyo, caloosha haddii la buuxiyo waa mashiin weeye shaqaynaya. jirka bini aadamkuna waa isla shaqeeya kulligii. waxaa hoos u dhacaya dhankii tafkiirka iyo caqligiiba hoos u dhacaya. hadduu hoos u dhaco waxaa imanaysaa in calooshii laga shaqeeyo. ka shaqaysiinta calooshana waxay qaadanaysaa jirka intiisii kale inuu seexdo. hurdaa imanaysa marka. hadday hurdo timaadana hurdadii waa dheeraanaysaa. wixii lagu abuuray waa seegtay marka. salaadii baa ku seegaysa, hawshii oo dhan baa ku seegaysa,
wuxuu dhan baa ku dhaafaya. rabbina wuxuu oranayay subxaanahu wa tacaala cagsa dalika markii laga warramaya gaalada ya'kuluuna wayatamattacuuna kama ta'kulu al-an'aam wannaaru mathwaa, way iska cunayaan, iska cabayaan, iska raaxaysanayaan sida xayawaankii oo kale. adigu xayawaan ma tihid, waa ka duwan tahay, qof muslima tahay. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa dhigay qof uu fadilay jala wacala. ilaahi subxaanahu wa tacaala risaalo dhan baad xambaarsan tahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam booskiisii baa taagan tahay, risaalo dhan baad xambaarsantahay. ummad baa la rabaa inaad hogaamisid. sidaa darteeda inaad cunid iyo cabid sida xayawaankii oo kale iska cuntid oo iska cabtid oo iska seexatid maya. waxaa la doonaya waa hami weyn inaad xambaarto. hamiga weynna wuxuu keenayaa cunid iyo cabitaanka inaad yarayso, soo jeedkaaga uu bato, waqtiga aad shaqaynaysid uu bato, thimaarta waqtiga markaa uu yeesho, waqtigaagii thimaar miro inuu yeesho. lanna qofka bini aadamka sidiisaba cumrigiisu hadduu bato oo dheeraado waa waqti aada u yar weeyaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oranayay acmaaru ummatii maa bayna 60 ilaa 70 wa qaliilu man yujaawis. ummadayda cumrigeeda waa 60 ilaa 70, wax ya dhaafayaaba yarba. aad bay u yartay inta dhaafaysa 80 jir hala tiriyo haddii la dhooyo 90 jir iyo imisa 100 gaartay aad bay u yartay. waxaa laga yaabaa wadankan oo dhan inta 100 gaartay waa fara ku tiris, 1 iyo 2 iyo 3 yaa la dhihi karaa. kawaaba kasii yaraanaysaa wixii intaa ka dambeeyaan. maa bayna 60 ilaa 70, 60 ilaa 70 inta u dhexeeya weeyaan. wa qaliilu man yujaawis, in dhaafaysaana yar buu yiri nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi. hadday sidaa tahay oo 12 sano ugu horeeyay aadan qaangaarba ahayn ay kaaga soo tagtay caruurnimo, intii ku xigtayna dhalinyaranimo kaaga tagtay, intii ku xigtayna aad reer yeelatay oo xoolo tacab kaaga tagtay, intii ku xigtayna ay caruur tacab, inaan caruurta nafirkoodii waa xawlo kale oo in la hagaajiyo u baahan, la celceliyo u baahan kaaga tagtay. aawi cumrigaagii awalam nucammirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum an-nadiir. cumrigaagii aawi mirihiisii. qofka bini aadamka wuxuu qiimo ku leeyahay intaaj, wax soo saar. waxna aad soo saarayso ama adiga ku intifaac ama makhluuqa ha ku intifaacaan. inaad wax soo saartaa muhim ah, inaad fikirtaa muhim ah, inaad wax soo saartaa muhim ah. walow tarbiya awlaadaada inaad tarbiyeyso oo mujtamaca ay wax kusoo kordhiyaan hadhow, taa xitaa wax dhan weeyaan. maxaa qabatay marka? isweydii. inan cumri waa ilaahayna siiye subxaanahu wa tacaala. cumrigeeni waa iska gebagaba weeyaan, waqti uu noqon doono ma naqaano. marka maxaanu ummadda u faa'iideynay? inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan wax u faa'iideyno inoo soo saaray, dhulkan inoo keenay. ummaddii maxaan u faa'iideynay marka? ilaahay inoo soo diray subxaanahu wa tacaala. waxaasoo idin marka waxa muhim ah inaynu dhowrno waxa aynu caloosheenna gelinayno. lanna mishiinkan hadduu hagaago socodkiisa waa hagaagaya, intaajkiisii wax soo saarkiisii baa hagaagaya, wuxuu dhan baa hagaagaya. laakiin hadduu mishiinkiiba kharibmo, wuxuu soo saarayna waa kharibnaanayaan, waxay noqonaysaa isagoo dhan in laga takhaluso marka, ina faa'iido ma lehen. sidaa darteeda qofka labada qof nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayay ka mu'minka ayaa ka kale ee faajirka ah. qofka mu'minka ah cid walba ayaa marka la waayo tabaysa. alla subxaanahu wa tacaala markuu fircoon iyo ummadiisii ka warramayay, fircoon iyo qoomkiisii macnihi, alla wuxuu yihi famaa bakat calayhim as-samaa'u wal-ard. cirna uma ooyin, dhulna uma ooyin. laakiin mafhuumu lmukhaalafa waxaa loo yaqaana macnaheedu waa maxay? qofka wanaagsan cirkaa u ooyaya, dhulkaa u ooynaysa. oo macnuhu cirkana meel allaali meeshiina alle subxaanahu wa tacaala waatuu inoo sheegay fi suurati faatir markuu ka warramayay allah camalka saalixa loo rafciyaa. camalka saalixa meel allaali meeshii looga rafcinayay ayaa u ooyaya. dhulkana meel allaali meeshuu marayay ee uu ku tukanayay, ee uu ku tasbiixsanayay, ee ku istighfaaraysanayay, ee rabbi uu ku caabudayay subxaanahu wa tacaala, ama dhinaca dhulka uu dhigayay, intiiba u oynayaan. isagoo taa nabigii nooga warramaya calayhi salaatu wasalaam kamaa fi sunan nisaai wagayri, ayuu wuxuu oranaya calayhi afdal asalaatu wasalaam idaa maata alfaajir istaraaxa minhu albilaadu walcibaadu walshajar waldawaab. faajirka kan ahi hadduu dhinto buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, faajirkii kaafirka ah ha noqdo ama kii islaamka sheeganaya daacada ilaahay ka baxay ha noqdo, idaa maata alfaajir istaraaxa minhu albilaad,
dhulkii ilaahay oo dhan baa ka raaxaysanaya alla nadaafiya inkaar qabiih istiraaha minhu albilaad meeshuu marayay meeshuu seexanayay meeshuu xumaanta ku samayn jiray fujuurka meel walbaba walcibaad addoomadii allah ka raaxaysanaya allah naga qabta inkaar qabiih istiraaha minhu albilaad walcibaad washajar xataa geedihii baa ka raaxaysanaya nabiga calayhi salaatu salaam والدواب تن أفراد وحكر راحيسان يا دوابتي للراعي قارب الراعي يا وحي ودني كل وكر راحيسان يا وح الله قر راحيسان يا وح كلامها إلا وحي إله هو أبوري سبحانه وتعالى أن يكسو بحواي قف كسو بحواي مهمة دي الله تعالى قال اللقوم ويقف إنتاج له وحسو صار له صار الله قر راحيسان يا مخلوقات كإله ودم بكر راحيسان لكن هدي مركو هرو ومشين كيسنتو هجاجيو dabadeedna hawshii loo diray qabto cid walba u ooyeyso oo dareemaysa cid walba markay weyso u ooynaysa adoobadii ilaahay baa ooynaya makhluuqaadkii ilaahay oo dhan hadday noqon lahaayeen bini aadan iyo hadday noqon lahaayeen qayrkiisaba hadday noqon lahayn samaawaadkii hadday noqon lahaa dhulkii hadday noqon lahaa shay walba ayaa dareemaya walidaalika ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga sheekaynaya yowmaidin tuxadisu akhbaaraha atadruuna maa akhbaaraha buu oranaya ma garanaysaan akhbaarteeda maya waxa weeyaan akhbaarteeda inay ka waranto ay tiraahdo maalin hebel iyo saacad hebel iyo waxaasaad igu dul samaysay allana ka hadalsiinaya dhulkan waxaad samaysay oo dhan bay ka markhaati kacaysaa wax allaala waxaan samayna oo dhan ay ka markhaati kacaysaa marka inaynu hagaajino cumrigeena baqiyadiisa waa shay muhim ah weeyaan ilaahayna aan ka barino subxaana wa tacaala inuu cawaaqibta inoo hagaajiyo ilaahay waan ka barina biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa biismihi alacdam الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى إن إلهي سبحانه وتعالى عواقبتين إنه هجاجيه عربتين إنه هجاجيه ضدكيني ومدينين إلهي هجاجيه سبحانه وتعالى لما أنت نقدر أضم إلهي والصالحين إلهي وحنا كم مجنقل يويدي سننا سبحانه وتعالى فجور نمو أي إلهي كم مجنقل يويدي سننا أنت فاجرين تأهنا أنت إلهي هنون لضم عينه إلهي سوى هنوني كون لضم عنا إلهي نشرتي سننا قبته سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.